Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Dhammaan daawadayaasheen sharafta leh ee ku xiran janalkeena soo dhawaada walaalayaal. Ku soo dhawaada maalin cusub iyo muuqaal cusub oo aad u xiiso badan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa aakhare iyo adduunba meel san inuu na geeyo biidnillaah. Soo dhawaada mar kale. Axbaabi maanta waxaan idinla wadaagi doonaa qisas laga arkay saliga xabiibkeena Maxamed sallallahu calayhi wasallam, gaar ahaan markii loo aqriya siiqadan allahuma salli calaa muxammadin wacalaa aali muxammadin kama sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiim wabaarik calaa muxammadin wacalaa aali muxammadin kama baarakta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiim innaka xamiidun majiid. Siiqadan ibraahimiyada qisas laga arkay ayaa idinla wadaagi doonaa. Haddaba soo dhawaada asxaabteena. Qisadayna koowaad waxay nooga sheekeynaysaa gabadhani waxay leedahay wallaahi muddo 3 bilood ah waa igu adkeed dadka inaan la hadlo, culeyska iyo murugada i haysatay awgeed. Waxaan isdhihi jiray war qofkan xitaa haddaad la hadasho maxaad ka faa'iideysaa, waayo maskaxdaada culeys iyo kurbo badan marka ay haysato hadalka dadkana uu waxba kuu tarayn oo dadkii kurbada iyo culeyska ay kaa qaadi karin, macnaha maxaad ka faa'iideysaa la hadalkooda ayaan is-iri ayay tiri. Ilaa ugu dambeyn alla subxaanahu wa tacaala farajkii ii keenay oo i haleeshiyey inaan akhriyo saliga ibraahimiyada allahumma salli calaa muxammadin wacalaa aali muxammadin kama sallayta calaa ibraahiim wacalaa aali ibraahiim wabaarik calaa muxammed wacalaa aali muxammed kama baarakta calaa ibraahiim wacalaa aali ibraahiim innaka xamiidun majiid inaan akhriyo uun ku celceli ayay tiri. Alxamdulillaah muddo bil ah markii aan waday ayaa subaxi dambe farajkii ii imaaday. farajka aan sugayay 3 bilood hal bil markaan akhriyay saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam ayuu farajkii ii imaaday ayay tiri. Alxamdulillaah. Qisadan xigta waxaa inooga sheekeynaya wiilkaana wuxuu leeyahay waxaan geli rabay tartankaas waxaan jeclaa inaan ku guuleysto, laakiin tartamayaasha oo fara badan, dad iga xeelad dheer, dad iga aqoon badan, yacni meesha waan jeclaa inaan guuleysto, laakiin dadka ila tartamay ayaa waxay ahaayeen dad adag. Waxaan bilaabay ayuu yiri inaan akhriyo saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam, gaar ahaan aan u akhriyo siiqada ibraahimiyada. Xitaa subaxi tartanka la galayay markaan wadada soo socday waan akhrinay ayuu yiri. Alxamdulillaah ugu dambeyn waxaa dhacday dadkii aan ka cabsanayay, dadkii aan islahaa waa dad waaweyn amay kaa guuleystaan inaan ka guuleystay ayuu yiri wiilkan. Kadib markii aan akhriyay saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam. qisadeen xigto maanta waxaa inooga sheekeynaysa gabadhani waxay leedahay saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam waxaan ku arkay mucjiso. Maalin maalmaha ka mid ah anigoo guriga joogo oo duruuf adag ay haysato ayaa alla subxaanahu wa tacaala qalbigayga wuxuu soo geliyey inaan akhriyo saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam. Markii aan waday oo aan akhriyay maalmo kooban gudahoodna alla subxaanahu wa tacaala duruuftii waa iga bixiyey oo faraj ayuu ii keenay. Maanta waxaan marayaa ayay tiri culeys walba iyo wax walba haddaan dareemo xalka koowaad inaan ka dhigto saliga nabiga. Sidaan u aaminay ayayna iigu shaqaysaa ayay tiri. Waxaan aaminay culeys kasto, wax kasto, murugo, wax walbo ila soo darso haddii aan akhriyo saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam inuu faraj ii imaanayo. Sidaas ayayna noqotaa ayay tiri oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala iguma khasaariyo akhrinta saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam. qisadeen xigta waxaa inooga sheekeynaya wiilkan wuxuu leeyahay saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam, gaar ahaan ibraahimiyada waxaan ku arkay mucjiso. Wuxuu yiri noloshii ayaa dhadhan iyo macaan ila yeelatay, waxaan helay xoolo fara badan, waxaan dareemay naftayda raaxo. Awal nolosha ayaa cariiri u ahayd, dhaqaale xumi, yacni wax walba ayaa iskugu kala darsamay, laakiin maanta maasha allah noloshayda farxad ayaan haystaa, macaanida nolosha ayaan dareemay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala xoolo ayuu i siiyey, waxaan arkay ayuu yiri waxyaalo badan oo indhahayga ay ku qabowsan karaan ayaan ku helay oo aan ku arkay saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam. qisadeen xigta waxay nooga sheekeynaysa gabadhani waxay leedahay waxaan daa'imay oo aan laazimay akhrinta saliga nabiga sallallahu calayhi wasallam, gaar ahaan siiqada ibraahimiyada oo ah allahumma salli calaa muxammadin wacalaa aali muxammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
in aan akhriyo 100 mar maalintii. 100 mar oo keliya waxaan akhrin jiray saacadda ka horeyso xilliga salaad subax saacadda ka horeyso ayaan akhrinayay. Waxaan waday ayay tiri oo aan akhrinayay muddo 5 maalmood ah keliya. Waxaan ku helay shaqo. Sidoo kale waxay tiri shaqadaas waxaan sugayay muddo ku dhowaad 4 sano ah. Waayo xaalad adag ayaan ku jiray. Alxamdulillaah Alla subxaanahu wa tacaala ayaa ii fududeeyay iina sakhiray in maalmo kooban oo 5 maalin keliya oo aan akhriyo saliga nebiga sallallahu alayhi wasallam gaar ahaan ibraahimiyada weliba 100 mar aan akhriyo in Alla subxaanahu wa tacaala farajkii aan 4 sano sugayay igu furay. Gabadhaanina waxay leedahay waxa ay haystay murugo fara badan iyo culays aad iyo aad u badan. Waxaan ahaa qof markii ay keligeed tahay iska ooyo. Waxaan bilaabay inaan sadaqo badan baxsado. Sidoo kale waxaan bilaabay inaan akhriyo saliga nebiga sallallahu alayhi wasallam gaar ahaan qaabka ama siiqada ibraahimiyada. Waxay tiri isbuucba kama soo wareeganin markii aan bilaabay sadaqa inaan baxsado. Sidoo kale aan bilaabay akhrinta saliga nebiga sallallahu alayhi wasallam. Murugadii i haysatay iyo arrimihii igu cuslaa iyo duruufihii i haystay Ilaahay wuu ii furfuray. Ilaahay subxaanahu wa tacaala albaabo badan oo iga xirnaa ayuu ii furay ayay tiri alxamdulillaah. Qof walba waxaan kula dardaarmi lahaa laazim saliga nebiga sallallahu alayhi wasallam gaar ahaan siiqada ama qaabka ibraahimiyada. Waxaa laga yaabaa inay kula dheeraato laakiin farajkeeda ayaa soo degdeg. Saliga nebiga sallallahu alayhi wasallam waxaa lagu helaa barako. Waxaa lagu helaa khayr walba adduun iyo aakhiro waad ku liibaanaysaa. Qaabka ugu fiican weliba waa qaabka ibraahimiyada. Waxaa laga yaabaa inay dheer tahay laakiin fadligeeda iyo barakadeeda ayaa fara badan. 100 marka akhri 50 marka akhri 10 marka akhri yacni intaad adiga awoodo qasab ma aha inaad dhahdo intaasoo kun aan akhrinayaa oo si niyadaadan u akhrinin. Muhiimaddu waxay tahay in kooban oo aqaam niyadaad u akhriso saliga nebiga sallallahu alayhi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallayta ala Ibrahima وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أخرك الألي كان nolosha aada mid ka mid ah carabkaaga uu la qabsan doonaa way kuu fududaan doontaa. Waxaad arki doontaa hadal walba aad hadlayso markaad firaaqada tahay markaad jaanis ka hayso adigoo carabkaagii intuu la qabsaday waska akhrinaya saliga xabiibkeena Maxamed sallallahu alayhi wasallam. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa khaatumadeena inuu noo wanaajiyo. Waayo qof walbo bin aadam ah wuxuu ku dhintay ayaa lagu soo saari doonaa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa hadalkeena ka ugu wanaagsan iyo camalkeena kan ugu wanaagsanba inuu ka yeelo midka ugu dambeeyo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu noo dambi dhaafo oo uu dunuubteena dhaafo. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu noo naxariisto. Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa waalidiinteena soo koriyay ee la soo barbaariyay intaana la soo ekeysiiyey inuu u naxariisto dembigoodana dhaafo. Waa mahadsantihiin walaalaha khayrka jecel ee nagu xiran. Haddaa meeshaan soo gaartay muuqaalka like saar si uu walaalo badan u gaaro ugana faa'iidaystaan. Haddaad nagu cusub tahayna fadlan ku soo bir channelka oo subscribe ka saaro qaybta hoose commentigan aan ku xusno aan ku nooleyno saliga xabiibkeena Maxamed. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.